munaasabadan lagu soo dhaweynayay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani Kenya. wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ahna musharax u taagan haatan xilka kuraasta xildhibaannimo ee deegaanada Jubbaland mudane Mukhtaar Sheekh Mahad Daawud ayaa waxa uu salka ku hayay is-xog waraysi la xiriira xaaladda ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale arrimaha deegaanada Jubbaland. kulankan oo hadallo ay ka jeediyeen qaar ka mid ah jaaliyada deegaanada Jubbaland ee ku sugan magaalada Mombasa ayaa waxa ay ku amaaneen maamulka Jubbaland oo madaxweynuhu ka yahay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo weliba sidoo kale hanaanka horumarinta ee deegaankaasi uu ka wado, iyagoona sidoo kale halkaasi ka sheegay inay taageersan yihiin musharaxan u taagan xilka xildhibaannimo ee deegaankaasi ee kursiga nambarkiisu yahay 136 ee deegaanka Kismaayo. طبعا Jubbaland waxay noogu fadhidaa ahmiyad balaaran bay noo leedahay. runtiina meesha laga soo bilaabay adiguna warbixin baad naga siin doontaa insha Allah oo kulli waad nagu xogogaalsan tahay. annaguna hadee xog fara badan baan ka haynaa, meel fog baa laga soo bilaabay in dib loo celiyana ma jecelin. xilli adagoo xasaasiya lagu jiraa oo xilli kala guura oo waddanku uu doorashooyin galayo. marka cid walba oo u nasab sheegata gobolka si guud Soomaaliya si gaarana Jubbaland waxaan ku boorinaynaa inay ka shaqeyso wanaageeda iyo nabadgelyadeeda ay ka shaqeyso. si guudna waxaan u taageersanahay maamulka kaana qaaday gobolka in lala shaqeeyo oo maxaa la jira wixii wanaaga aynu ku garab istaagno. midada kale waxaan rabnaa dadkayna walaalahayna oo Jubbaland joogaan, waxaan rabnaa inay anaga ay na fiirsadaan oo aan ku dhiirigelinaynaa duqeydayna xagga joogaan, hataa hadday noqoto dadka walaalka isgarab ordi inay la kala saaro. annaga waxaan rabnaa mudane Mukhtaar first priority nolosha. muhiimadda shirka waxaa weeye inaan ku taageero walaalkeen Mukhtaar Sheekh Mahad oo ah musharax ka taagan kursiga magaalada Kismaayo. mudane Mukhtaar Sheekh Mahad Daawud oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa uu ka warbixiyay xilligan doorashooyinka Soomaaliya ka bilowday gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo uu sheegay in ay si habsami leh ku socdaan, isagoo sheegay inay tahay arrin habboon in is-ixtiraan iyo isqadarin doorashadaas ay ku dhacdo. waxaana carabka ku dhuftay inuu aad uga soo horjeedo hadal dhawaan ka soo yeeray qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Nairobi ku sugan oo ay sheegeen in kursiga uu ku tartamayo hal musharax oo kaliya loo daayo. anigu nimankan dhalinyarada kulligood yar yihiin daad ahaan musharaxiinta ah dhowr jeer baan muxuu ahaa la qaday ayagoo 3 ah 4 ah aan wada qadeynay. waxaa kaliya codsanahay mar walbaan ka codsado waxaa weeye waxaa sameysay walaalayaalow waynu tartamaynaa, innagu naga dhexeeya tartanka yaysan marna dhicin adiga tartanka naga dhexeeya in cid kale wax isku yeesho, in cid kale wax isku yeelaan ay ku kala dhintaan oo lagu dagaalamo yaynaan annaga sabab u noqonin. taasaan ula adkaynayaa. aniga ma doonayo in sabab inaan u noqdo in laba ruux oo walaalo ahaa oo wax ka dhexeeyey oo wanaag ka dhexeeyey inay ani awgey u kala dhintaan. ma dhiirigelinayo, ma soo dhaweynayo. waxaan rabaa cid kastoo hadda musharax ah oo xaq u leh kursigaas in sideeda loo daayo. maxamed cabdi bootaan warbaahinta Star magaalo xeebeedda Mombasa.